بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ما محل ما أنت نسو وذا فديسي أنا يا بروفيسور برافين مرة بعد إنه كلنا أو صار نقضي نقول دون تنا شغلي سو هل كانوا كنا كقبنا هيو شغا جوكتا أصلا يتيم أو وطه يا إيمان دون حد قرطه أصلا بحو حاسول waxaan filanaynaa haddii alla idmo in uu yimaado oo intuusan xataa bixin professor kale oo saaxiibkiisa oo iyagu isbebedelaan laakiin shuqulkii si joogtaa loo wado saad u ogtihiinba qaliyaalkii cuslaa oo hadda suubiyey waagii dhoweyd kulligooda dhan waxay ahaayeen maasha allah yani kuwa lagu guulaystay waxyaalaha aan cajaa'ib ah oo aan malaynayn xataa inay la suubin karo halkan uu suubiyey nin xangulaha dhabarka ka go'ay qoorta ka go'ay oo kulligiisoo paralysis kooma ku jiray maanta waa sheekaynayaa waxaanana hubaala haddii alla imo inuu socon doono dadkii intii la qalay oo dhan kulligood oo dhan waxay noqdeen kuwa lagu guulaystay badidood haddee aanu ka wada faa'iidaysano joogidiisa haddii alla idmana mataqaano ma noqonahayo nin inta jeebka buuxsada iska tagi doona waa nin joogahaya hadduu maqnaadana in yar buu maqnaanahaya intuu maqan yahayna waxaa bedelahaya nin saaxiibkiisa oo yani levelkiisa ah oo professor asagu. Inshallah, we have performed 8 surgeries in last month, so we would like to continue the same which was happened in the last time. Every month we are going to do around 10 to 20 surgeries. Every month we will give service, good service. Out of 8 patients, all the patients are doing good. So we hope we will raise the infrastructure and will improve the services in the brain surgery and spine surgery. Hope all the Somalians will get service done at GMC hospital under the guidance of Dr. Abdul. Will hope do better service for the nation. Thank you for your help and our services. qaliyaalkii bishii dhaweyd aan suubinay oo dhan waana ku guulaysanay joogidayada iyo imaashadayadan halkaana waxay noqon doontaa mid yani xoojisa structureka iyo serviceka dadkii Soomaalida ahaa la siinayo marka waxaan doonaynaa inaanu wadno shaqooyinka sida ugu wanaagsan loo qaban karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waxaan salaameynaa bulshooyinka Soomaaliyeed si gaar ah reer Puntland. Waxaan ugu hambalyeynaa ugu bishaareynaa inuu Professor Bravin uu dib ugu soo noqday gobolka Mudug Gaalkacyo isbitaalka GMC Gaalkacyo Medical Center Hospital. waxaan u rajaynaynaa sidii horeyba uga faa'iideysteen 10 qalliin oo hore buu sameeyay 10 qalliin buu ku guuleystay dhakhtarku laba qof pro maskaxda uu ka siibay nin xabad uga soo dhacday luqunta oo asna xabad luqunta xanguluhu soo go'ay lafuuna jajabeen cervical bones wax loo yaqaan ayagana la kabay xangulihiina uu ku sameeyay dib u habeen iyo 8 qalliimo oo kala duwan 5 shaatiya iyo 5 kale oo spinal ay ku jireen diskiga uu hagaajiyay insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga wada faa'iideysto dib u galaya uu fadhiya saa ku bilaabay shaqadii waxaan rajaynaynaa inuu bulshada Soomaaliyeed uu si hagar la'aan ah ugu shaqeyn doono. magacaygu waa Cabdirashiid Cali Maxamed waxaan rabaa inaan ka warbixiyo ninkan oo la yiraahdo Aadan Salaad Xasan oo shil ku dhacay hadda ka hor adigu 2 bilood meelaha ka hor buu ku dhacay ninkan surka waxa kaga dhacay xabad ninka xangulaha boqolkiiba 70 baa wax gaareen xilliga shilku gaaray anagoo rabno inaan u qalqaalino wadanka dibadiisa Hindiya ama haddii alla ku reeyay Malaysia ama meeshii kale oo hadda isniraano ma garanaysaa dhakhtar baa ka heli ka dhaanin waxaan ilaahay mahad ka helay dhakhtar caafimaad oo ku takhasusay arrimahaas xagga neerfaha xagga maskaxda qalliinka haddii alla ku reeyay neerfayaasha isbitaalka GMC ee Dhagacade
ninkii waa soo roonaanayaa aad iyo aad buu hadda ma garanaysaa xaaladiisu usoo fiicnaanaysaa awal dhaqdhaqaaq ma lahayn hadda lugaha markaad tiraahdo dila qaad waa kula qaadayaa haddii alla kuu roon yahay gacnaha middaas waa u fiican tahay middaas wax yar baa haddii alla kuu roon yahay ka haray iyaduna waa shaqaynaysaa surku waa kaban yahay dadka waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliya jooga ama Puntlandba dhakhtarkaas inuu yahay dhakhtar ku takhasusay arrimahaas ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin dhakhtar aqoon u leh inuu yahay isbitaalka GMC baa laga helaa dhagacade magaalada Gaalkacyo waxaan leeyahay haddii alla kuu roon yahay dhakhtarka lala xiriiro ninkan arrintiisa aad bay soo fiicnaanaysaa caafimaadku waxa la yiri waa soo dhutiya cudurkana waa soo boodaa insha Allah waxaan filaynaa ilaahay fadligiisa inuu soo fiicnaado oo haddii alla kuu roon yahay cagihiisa ku socdaano ilaahay ka rajaynaynaa sidaasaan dadka la dardaarmaya waa billahi tawfiiq